hore ma ugu aragtay ninkan oo diinta Kirishtaanka ugu yeeri jiray dadka muslimiinta ah wuxuu leeyahay waxaan rabay inaan noqdo daaci weyn oo muslimiinta ugu yeera diinta Masiixiga laakiin afartan aayadood ee Quraanka ah markii uu arkay ninkan waxay sabab u noqdeen inuu diinta Islaamka soo galo haddii qof muslim ah tahay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto siina share gareyso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay ugu cibra qaataan ugu horreyn aan ku salino nabigeena sallallahu alayhi wasallam dhamayso sheekada xiisaha badan ee ninkan siina faar waxa uu ka dhashay qoys Masiixiyiin ah oo deganaa dalka Canada si ayay qoyskiisu geeyeen kaniisadda laakiin waxa uu fahmi waayay oo ku adkaatay macnaha thaaluthka ama saddexda ilaah maxaa yeelay qayb ka mid ah Masiixiyiintu waxay aaminsan yihiin Ciise inuu yahay ilaahi runta ah qaar kalena waxay aaminsan yihiin inuu yahay wiilkii ilaahay laakiin si qasab ah ayaa Tony looga dhaadhiciyay fikirkan maxaa yeelay wuxuu aaminay ragga ka waaweyn waxay sheegayaan inay sax tahay markii uu jiray sanada 16 ayuu diinta Islaamka ka maqlay raadiyaha ama telefishinka waxaana laga dhaadhiciyay in muslimiintu marka ay xajinayaan ay caabudaan dhagaxa madow ee xajarul aswadka sidoo kale markii ay tukanayaan oo ay sujuudayaan nabi Muhammad inay caabudayaan sidoo kale waxa laga dhaadhiciyay inay muslimiintu yihiin dad argagixiso ah oo cid walba dhibaateeya markii uu maqlay fikradahan qaldan ee diinta Islaamka looga sheegay wuxuu go'aansaday inuu dadka muslimiinta ugu yeero diinta Masiixiga una ka badbaadiyo jaxiimadaas iyo wadadaas qaldan oo ay ku socdaan sidoo asagu aaminsan yahay isla markaasna wuxuu bilaabay inuu barto kutubta Masiixiga si uu diinta Kirishtaanka wax badan uga barto asagoo akhrinaya kutubka muqaddaska ah ee Shaaf Rusul ayuu ku arkay in ay dhammaan rususha tuka jireen oo sujuudi jireen xitaa Ciise inuu tuka jiray oo sujuudi jiray sidoo kale wuxuu ku arkay kutubka Injiil haweenku inay xiran karaan xijaabka iyo niqaab wuxuuna xasuustay inuu muslimiinta ku arkay arrimahan oo dhan ayagoo sameynaya sidoo kale isla kitaabkaas wuxuu ku arkay in la soomi karo gacmaha kor loo taagi karo la ducaysan karo cilmi baaristiisa ayuuna sii watay waxa uuna akhriyay kutubka la yiraahdo al-Cahdul Qadiim ama Injiilkii hore wuxuuna isla kutubkaas ku arkay arrinta ugu daran oo qalbigiisa taaba doonta taasoo ah inuu nabi Ciise alayhi salaam imaan doono nabi Muhammad kadib sallallahu alayhi wasallam isla markaas wuxuu go'aansaday inuu aado masjidka dadka muslimiinta ah ay joogaan si uu u soo iibsado kutub Qur'aan ah oo turjuman masjidkaas uu imaanayayna waxa imaam ka ahaa Sheekh Soomaali ah imaamka ayuu u yimid waxa uu ku yiri waxaan rabaa inaad iga iibiso kutub Qur'aan ah oo turjuman Sheekh Soomaaliga ahaa ayaa ku yiri halkan fariiso oo isug intaan tukanayno salaada casirka ah aniga ayaa ku siinaya kutub Qur'aan ah oo turjuman oo lacag la'aan ah masjidka waxa uu ku dhex arkayay dadka muslimiinta ah oo tukanaya oo dhammaantood wada sujuudaya afwan salaadu waxay ahayd salaad maghrib ah waxa uu maqlayay oo dhageysanayay sheekha codkiisa oo aad u macaan arintaas ayaana saameysay oo uu aad ugu raaxaystay markii salaada laga baxay sheekhu waxa uu u keenay ninkan kitaab Qur'aan ah oo English lagu turjumay waana uu siiyay asagoo wax badal ah iyo wax lacag ah ka qaada ninkii oo la yaaban arintaas ayaa weydiiyay sheekhuna waxa uu ugu jawaabay qof walba oo naga dalbada nuskhooyinka Qur'aanka ah hadiya ahaan ayaan u siinay Qur'aanka ayuu qaatay gurigiisa ayuuna la aaday waxa uuna isbarbar dhigay kitaabka Qur'aanka ahaa iyo kitaabka Injiil waxa uuna kitaabka Qur'aanka ah ku arkay 4 aayadood oo markii uu akhriyay sabab u noqday inuu Islaamka soo galo aayadda ugu horeysa waa aayatul kursi aayadan oo ka hadlaysa Ilaahay weynankiisa Ilaahay inuusan u baahnayn hurdo ama raaxo waxa uuna barbar dhigay kitaabka muqaddaska ah oo sheegaya Ilaaha Masiixiyiintu inuu nin isu bedelay Yaquub la lagdamay oo ka adkaaday sidoo kale Ilaahaas inuu u baahan yahay raaxo iyo hurdo waxa uuna isweydiiyay kee saxsan labadan ilaahan daciifka ah iyo ilaahan awoodda badan sidoo kale waxa uu akhriyay aayadda 135 ee suuratul baqara wa qaaluu kunuu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibraahiima xaniifan wama kaana minal mushrikiin iyo aayadda 67 ee suuratul imraan ma kaana ibraahiimu yahuudiyan wala nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wama kaana minal mushrikiin labadan aayadood aad ayay u saameeyeen noloshiisa waxayna sababeen inuu diintiisa bedelo maxaa yeelay dhammaan yuhuudda masiixiyiinta waxay aaminsan yihiin inuu nabi ibraahim saxsanaa oo ay raacsan yihiin maxaa yeelay ibraahim waa aabihii ay dhammaan nabiyaashu ka soo farcameen waxaana lagu tilmaamay inuu xaniif ahaa xaniifka macnihiisuna waa toosnaan iyo istiqaamo iyo hoggaansan waana inaad rumayso dhammaan rusushii uu ilaahay soo diray sidoo kale wuxuu arkay aayadda lambarka 2 ee suuratul baqara alif laam miim dhalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin markii uu akhriyay dhammaan qur'aankana waxa uu arkay inuu yahay laa rayba fiihi mid uusan shaki ku jirin sidaas ayuuna u islaamay ninkan 5 qof oo muslimiin ah u sheer gareen muuqaalkan